kusoo dhawaada warka kale samee TV qodobadaan idin hayno waxaa kamid ah in ka badan 20 meeyo qof oo laga cabsi qabay inay ku dhinteen markaba Shiinaha badeeda marayay oo isagu qalimay waxaanu kale eegi doonaa dhul gariirka ku dhuftay dalka Iran wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa duqeyn Ruushka ka furiyay magaalada Odessa ee dalka Ukraine dad badan ayaa lagu laayay wadaadda shiicada dalka Iran hogaamiye u ahaana waxa lagu beegsaday weerar ismidaamina iyo mas laba madax leh oo lagu arkay dalka Koonfur Afrika warbaahinta caalamka oo aad u hadalhaysa ayaanu eegi doonaa ugu horeyn hadda nagu cusub tahay subscribe dheh oo hel dhacdooyinka dalka qaaradda iyo deegaankaagaba muuqaalka like saar oo sii share garay haddii aad awooddo waad mahadsantahay aan ku bilowno dalka Shiinaha waxaa la soo sheegayaa in ka badan 20 meeyo qof in laga cabsi qabay inay ku dhinteen kadib markab ay la socdeen uu jabay badda koonfurta Shiinaha xilli uu marayay 20 meeyada shaqaalaha ah ee la socotay markabka ayaa laga cabsi qabay inay geeriyoodeen kadib markii markabkan uu laba u kala jabay xilli ay duufaan ku dhufatay badda koonfurta Shiinaha sida ay sheegeen adeegyada degdega ah ee Hong Kong diyaarado iyo waliba kuwa qumaatiga u kacay helicopterka loo yaqaano ayaa maamulka Shiinaha u diray si ay u badbaadiyaan shaqaalaha laakiin laga bilaabo 5 iyo 30 daqiiqo waqtiga maxalliga ee dalkaasi Shiinaha ayaa kaliya 3 ka mid ahaa 30 shaqaale la soo badbaadiyay waxaana wararku ay sheegayaan in xaaladda weli ay tahay mid cakiran oo baaritaano ayaa soconaya sawir laga soo qaaday markabka ayaa laga arki karay isaga oo dhex sabeynaya biyaha oo burbur uu soo gaaray duufaanta saameynta ay u geysatay aawadeed madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in koox gaar ah loo xil saaray arrintaas inay baaritaano ku soo sameeyaan haddaba wixii ka soo kordhay wararka iyaga dambe ayaad ku daawan doontaan xaaladda markabkaasi Shiinaha ee kala jabay xilli uu marayay koonfurta badda Shiinaha bal markana inta la og yahay 22 qofood ayaa la soo warinayaa inay ku leedeen duqeymo Ruushka diyaaradahooda ay ku garaaceen magaalada Odessa ee dalka Ukraine sidoo kale wararkii ugu dambeeyay la helay waxay sheegeen in duqeymuhu ay ahaayeen kuwa aad u xooganaa saacadii la soo dhaafay isla markaana gobolka Mykolaiv ee xuduudda ku yaala gaar ahaan magaalada Odessa ayaa la tilmaamay in jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhashay madaafiicda diyaaradaha iyo kuwa maraakiibta ay tuurayaan halkaas la sheegay inay ku dhacayaan si xawliye waxaana magaaladan dekada ah ee Odessa ay ka mid ahayd meelaha sida weyn ay ugu hardameen ciidamada Ruushka iyo waliba kuwa Ukrainiyiinta afayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Mykolaiv Alexander Senkevich wuxuu ku soo qoray bogga Twitter-ka qoraal ama fariin uu soo geliyay in 22 qofood dhimashada ay tahay wakaaladda wararka ee Reuters ma helin wararka madax bannaan inta ay sheegayaan mas'uuliyiinta dawladda Ukraine Kiev iyo waliba xukuumadda Moscow ayaa weli isku haya dagaalka dalka Ukraine ka socda marka loo eego wajiga uu galay jimcihii shalay ilaa maanta Sabti ahayd ayaana dagaalka xoogiisa uu ka dhacay magaalada Odessa oo la leeyahay duqeymo ayaa sida roobka oo kale Ruushka ciidankooda ay ugu garaacayeen halkaas wax ka badan 5 bil ayaa dagaalka uu galay gudaha dalka Ukraine xilli afyeen u hadlay xukuumadda Kremlinka Dmitry Peskov uu sheegayo in madaxweyne Vladimir Putin uu doonayo sidii ciidankiisa ay horumar uga sameyn lahaayeen deegaanada weli ciidamada Ukrainiyiintu ay joogaan isla markaana ay doonayaan sidii guud ahaan dalkaas gacanta loogu soo dhigi lahaa waa tahay daawadayaal bal markana Iran ayaan eegaynaa inta loo geeyay 5 qof ayaa la soo sheegay inay ku dhinteen 49 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dhul gariir uu ruxay koonfurta dalka Iran maanta Sabti ahayd dhul gariirka oo cabirkiisa lagu sheegay 6.1 qalabka Richter scale-ka ayaa markii dambe waxa uu gaaray baa la yiri 6.3 qalabka dhul gariirada lagu cabiro ilaa 2 jeer ayaana si xawli ah loo dareemay ilaa 24 deegaan ayaana laga dareemay dhul gariirka xaafadda Saaye Qosh oo gacanka gobolka Hormuzgan la yiraahdo ayaa dhul gariirka uu saameyn ku yeeshay dhimashada 5 qof iyo waliba dhaawac 49 qofood marka laga soo tago waxa kale oo jira burbur hantiyeed oo ka dhashay iyo dhismayaal dumay wadooyinka qaar ayaa tariiqmay ama jeex uu ku yimid sida laga arki karay sawirro laga soo qaaday gudaha dalka Iran Fuad Bursade oo ah gudoomiyaha gobolka Bandar Lenge wuxuu sheegay in
ay qudhooda dareemeen dhulgariirka. afayeen u hadlay kooxda gurmadka degdega samaynaysay mujtaaba khaalidi ayaa u sheegay telefishinka dalka Iran in 49 qofood oo dhaawac ah la geeyay cusbitaalka, xaaladoodana iminka la baxnaaninayo. waxaa iyana la soo badbaadiyay howlgal la sameeyey dhowr qofood oo guryo ay ku sugnaayeen ku duldumeen. Iran ayaa ahayn markii ugu horeysay oo dhulgariir uu ka dhaco sidaanoo kale dhowr jeer ayay wax uga dhaceen dhinaca dhulgariirada marka la eego. wararka Iran ayaan ku guda jirnay mid ka mid ah wadaadada Shiicada ah ee dalkaas ayaa maanta Sabti ahayd gelinkii hore ka badbaaday isku day dil oo la doonayay. qof saarnaa mooto ayaa la tilmaamay in uu toogasho sameeyey, inkastoo markii dambe ismidaamin mootada qaraxyo ku xirnaayeen ay samaysay, waana uu ku dhaawacmay ninka la beegsanayay oo lagu magacaabo Muxsin Aqafan. ninkan ayaa ka mid ah culimada Shiicada ah ee ururka Hujjatul Islaam la yiraahdo qaybta ka ah magaalada Isfahan la yiraahdo, ayaana ninkan lagu beegsaday. Aqafan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah imaamyada masjidka magaaladaas. wuxuu ka soo laabtay gurigiisa oo uu salaada subax markii uu soo tukaday ayaa marka uu gurigiisa uu u dhawaa la beegsaday, sida ay sheegtay warbaahinta Irib ee dalka Iran laga leeyahay. bilowgii bishii Abriil ee sanadkan kooxo sunniyiin ah ayaa gobolka Uzbek ee isla dalka Iran waxay ku mindiyeeyeen laba ka mid ah culimada Shiicada ah, iyada oo markaas labadaas qof ay dhinteen, 3 kalena la dhaawacay magaalada Mashhad ee waqooyi bari dalka Iran. gabagabada ayaan soo gaarnay daawadayaal, bal markana aanu eegno dhacdo dhifi naadir ayaa lagu arkay dalka Koonfur Afrika, taas oo ah in warbaahintu ay aad u hadalhayaan saacadii la soo dhaafay mas laba madax leh oo lagu arkay dalka Koonfur Afrika. sawirada la arkay ayaa muujinayay in deegaanka Ndwedwe la yiraahdo 60 kilomitir waqooyiga caasimada gobolka KwaZulu Natal ee Durban lagu arkay, iyada oo maskan labada madax leh ukun uu dhalay ay dadka arkay ay meesha ugu tageen, isla markaana sawiro laga soo qaaday waxay muujinayaan in markii dambe laga saaray. saxafiga Nick Evans oo soo bandhigay xogtan ayaa markii dambe ka saaray bartiisa. waa xamaaratadii ugu horeysay ee mas ah ee lagu arko Koonfur Afrika waayadan dambe oo kuwa xabadka ku socda ee laba madax iyaga oo leh, taas oo dadka badankood ay wax la yaab leh ku noqotay. bogga Facebook ayaa la soo geliyay, inkastoo markii dambe laga saaray maskaas labada madax leh. dhacdooyinka noocaana ayaa waxa ay yihiin kuwo dadku ay la yaab ku noqoto marka loo eego wax aan hore loo arki jirin ee dhifi naadirka ah. maska ayaa laba madax leh, iyada oo haddaba aad arki kartaan in uu yahay mid weyn, isla markaana meel dhagaxaan iyo weliba dhir ay ku yaalaan ayaa lagu arkay. guud ahaan daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa wararka Kalsame TV aad kala socoteen. intaan wararkaan oo kale dib isku arki doonna, sidaas iyo nabadgelyo.